الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي امتحان درسي شهوات فربضا، شهوة حولها، شهوة عرورتا، شهوة قلمدا، شهوة مقعة، شهوات فربضا. لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا ugu khatarsan waxa kamid ah hadayna ugu khatarsanay shahwada milkiga iyo madaxnimada iyo kursi raadiska iyo boqortooyada. Iblis markuu aabaheen aadam fitnayn rabay, waswaasin rabay si uu jannada uga soo saaro, halka irid ee uu fahmay inuu ka geli karo waa laba iridood. iridda koobaadi waxa weeye waa milki jacayl, iridda labaadna waxa weeye waaritaan iyo jiritaan jacayl. saas daraaddeed markuu sirahayay wuxuu ku yidhi: yaa aadamow, hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa. ma ku tusaa geed haddaad cunto aad waari oodan dhimanaynin, boqortooyo iyo kursina aad heliyood ku waari. ibliis wuxuu fahmay aadamaha meelaha laga galayo iridaha ugu muhiimsani inay tahay kursiga iyo boqortooyada. meeshaasuna aabaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam ka soo galay oo uu dantiisii ka gaadhay, oo jannadii laga soo saaray, oo dhulka layna keenay, oo rafaad iyo aafada ina haysataay ilaahay inoo qoray. nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu inoo sheegay in manaasibta iyo kuraasta iyo madaxnimada aad ku dadaali doontaan. sataxrisuuna cala alimaara, madaxnimada waad ku dadaali doontaan, dadaal adag baad u geli doontaan adduunka intaad joogtaan. maalinta qiyaamadana waxay noqon doontaa qoomamo iyo nidaamo iyo farta inaad dhexda ka qaninto tiraado allow maxaa ii geeyey. macaanaa markay ku nuujinaysood naaskeeda jaqayso, magacii iyo jaahii iyo maalkii iyo amartaaglayntii iyo rooggii casaa iyo sacabintii, fa nicmati almurdica, naaskeedii baad jaqaysaa. wabi'sati alfaatima buu nabi sal alla alay wasalam, markay ku goyso naaska kaa goyso dhib iyo aafa markaasay ku haysataa. inay ku goynaysana shaki malo ahoo weligeed naaskeeda nuugi maysid oo ku dhaganaan maysid. maalin kaste naaska ay kaa jartaa laguu joogaa. madaxnimadu waa midda uu ninku ilmihiisa u dilo. imisaa nin wiilkiisa u dilay kursigii buu ku qabsaday. imisaa ilmo waalidkii u dilay kursi dartii. imisaa nin xaaskiisa u dilay kursi dartii. imisaa xaas ninkeeda u dishay kursi dartii. dadka kuwaad ugu jeceshahay ood cuntada iyaga ku hormarini, ood magaca la jeceshahay, oo aad wax walba u huri lahayd, markay noqoto inay kursi kugu qabsadaan waad khaarijini, uma quudhid. kursigu waa shahwada ugu halisan bini aadamka shahawaadkiisa. sidaas daraaddeed markay timaado ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu taxadarkiisa qabo. war meeshani waa meeshii lagu halaagsamay. taariikhda markaad dib u akhrido oo sijillaadka taariikhda aad soo rogto, taariikh gaal iyo taariikh muslimba, caalamka wixii fitno soo maray intooda ugu badan waxaa sabab u ahaa kursi iyo raadintiisa. jagadaa iyo madaxnimadaasi mid ku fadhiya iyo mid ka riixanaya oo raadinaya baa adduunka soo rogay taariikhda akhriya. ilaa maantana adduunka waxa rogaya taas waay.
انت مركان اوغانو مثال اي نسو قادنو قواعد مثال كعاديه تسالياشو ما انت وافر بديهن ادونكينا وا اسو فرمي wax qarsoonna ma jiro caamayguna waa dhageysanaya waa akhrinaya culimadana warkooda iyo aqoonyahanka iska badaa adduunka maanta wax qarsooni ma jiro kii hore wax kala qarsoonayeen ma laakiin hadaynu tusaale soo qaadano Soomaaliya u soo qaadano wadankaas maanta xaalkiisu saa u yaalo la qaybiyay oo qaybsan la burburiyay oo burbursan dadka ku nooli intooda badan faqriga khadkiisa ay ka hooseeyaan dhalinyaradiisii ay badaha ku baaba'ayso farigelin shisheeye la liicaya oo cid walba doonaysa inay dantiisa ka gaadho mujtamaciisii uusan is haysanin dalka saa u yaala ee dhibkaasi haysto ayaa maanta koox yari ku hardamaysa hal kursi waxaad isweydiisaan dalkan maxaa halkaa dhigay waxaa halkaa dhigay niman kursi raadisa oo kadibna magaca qabiil huwaday oo isticmaalay iyo mid kursi ku fadhiyo u quuri waayay iyo shacab aan wacyi lahayn oo la isticmaalay saddexdaas isugu darmaday dalkan oo uu burburiyay saddexdii burburisay baa maanta 30 sano kadib meeshii laga biloobay baa dib loogu noqday reer bani Israa'iil baa Ilaahay wuxuu ku sheegay 40 sano inuu Ilaahay ku imtixaanay tii iyo jahwareer meeshay subaxdii ka guuraan bay galabtii ku soo noqdaan say u wareegaysanayaan meeshii baynu ku soo noqonnay luqaddu waa luqadii damacu waa kursigii waxa la isticmaalaya waa qabyaaladii luqaddu waa luqadii xasaasiga ahayd ee Soomaali laga taaban jiray meel laga rogaa jira furaha laga rogo waxa kale oo dhan ma diiriso laakiin marka la yiraahdo gobolkeena reerkeena deegaankeenna qabiilkeena jifadeena taasaa rugaha ku rogta furaha ku rogo furuhu waa ka furuhu waa furihi hadalku waa hadalkii raggu waa kuwii kuraasta raadinayay meeshii baan maanta joognaa shacabka wacyi la'aantiisina waa dheerta iyadoo waa sideedii waxaan jeclahay 3 farrimood diintu waa naseexo 3 farrimood inaan u diro 3 jiho oo hawshaasi khusayso jiho waa qolada kuraasta ku fadhida jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalinkaana mas'uuliyadiisa iyo tabiicaadkiisa ilaahay hortiisa ay ku taalaa way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed ya maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasni baa jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin waxa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax way 20 jir ilaahay uma xil qarinin xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayaad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay
war aaway raggii kuraasta isku dhajiyey xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min asiniin ka talinaya caalamka meelo ka mida zaynulcaabidiinkii tuunus aaway shaynulcaabidiin dheh aaway butufliiqa jazaa'ir aaway mubaarakii masar aaway cali cabdallah saalax yeman aaway qadaafigii 40 sano ka badan biliibiya ka talinaya aaway war aaway madaxdii adduunka waa tageen maanta haddaan heli lahayn wax inooga soo warramo waxa qabriga ku haysta iyo ilaahay hortiisa waxay la tegi lahaayeen wax badan baa laynoo sheegay laakiin lagu waana qaadan maayo ninka kursiga ku dheggan waxaan leeyahay kuwaana qaado qayrkaa iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaadii waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaanan kuu xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dile in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagta adoo keligaa oo qaawan adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaasul kursiga lamaadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaskaa baa looga tanaasulaa tanaasulku waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kamaa fi saxiixi albukhaari waghayrih maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka nebigu waa jalleecay sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibni cali bni abi aalib sanadkii 4tanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii laysku hayay mucaawiyat bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma sanadkaana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta caamuljamaaca xadiidkiiyo bishaaradii nebigaa xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimkaa buu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyey sharaf male nin ummaddiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakharaba tanaasuloo maslaxada u tanaasul fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaau watanzicu lmulka miman tashaa dagaal iyo dadaal loo galayna laasim maaha in kursigaa lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya waa midda labaadee kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado 10na ma qaado 7na ma qaado hal buu qaadaa kursigaa halka qaada waa midkii soomaaliya intay isku laysay la qaybiyey oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyey adiguna madaxweynaa tahay kursigii ayaa markii
وكوة في الله ويا وحي نقطي إن طبعاً كرسي أو كلا الله صاره أو لوقا عيون ليله هذا اللانديس كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان والكرسي وامد إلهين النبو أقري هذه حقيقة بها كما دبعوها مد الصدح هذا اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشرته دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رجي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفري ستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دالك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين وحاليا هاي لقد قبيالة داية هذا الكحنفت لداية فتنتك انت هذا كفوقادا سي مسؤولية دي كتشرت الرقمة يا ذلك أطرى ضدك أطرى ظروفت أمد هيسة أطرى إلهي كبقى إلهي كبقى قبيالة لقوع العلينيو إيه لكعنيو إيه لقوع هالليو إيه لقوع دارانيو ورصوتي هالكاينة دكتي معه ورصوتي أنكوهم قوني معه ورصوتي أنكو تشبني معه ورقورمي شاتي كلا إنا سو حراتي صدن سنة كدب قورمي شاتي كلا سو حرات سو إيدي أون معه وإيدي لكن وجه يدا إسبدلي شلي وحي أهي جنرال فلان بوها شلي ما أنت نوى سياسي فلان لكن واحد قالوا يسبدلي ما تشيروا وعلي فتنها أباب لنا آفنا دلك يددك الصوها ونقننا شر لهرسيدها ونقننا فتنة لمرد الدمية شرنا اللي اسكو مدررية وان لقى فقادة وان لقى تحدرا كهرتك بوليه كدبتك مله آفدو هذي هرطيه لا عدنا نول بيسا ميسا دروس تيدنا وانو هينا وحاليا هاي وانو قدام بيسينا يا كلمات كان قولدا كليا ومدن آدي سكين إيسان الليدهين مظاهرات سمية oo saaxadaha iyo banaanada aad isugu keenaysid leediin dastuurka noo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinka naga yaqaana war bishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaallo ku faafsan war kooxad dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwa kale ha ahaadeen war way fududahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydan kontrooli karaynin oo haday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacba imaanaya hanti la burburiya imaanaysa mana kontrooli kartaan dawladina ma kontrooli karto been waay ya dawladaha waaweyn baa kontrooli kari waay mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxa ku jira dad xilma kas ah dad waxa ku jira wax booba xisaabaad ijraan baa ku jira ya war Mareykan baa kontrooli waay oo Faransiis baa kontrooli waay oo Ingiriis baa kontrooli waay oo dawladii xoog badnaa baa kontrooli waay ummadu haday dhaqaaqdo lama kontrooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya mas'uuliyadda qaadi doona isweydiiya ya mas'uuliyadda qaadi doona markaad ummadan ku khamaaraysaan oo kaliya ujeedadiinu ay tahay inaad ku abuurtaan kaliya pressure aad ku abuurtaan qolada idinka soo horjeeda oo waxa la yiraahdo muxuu ahaayay caalamka aad abuurtaan pressure ku abuurtaan ujeedadiinu inta tahay waxay dhici kara iyo dhiiga daadan kara iyo aafada iimaan karta iyo hantida burburi kartada aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiiga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan
bimujarrad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaa dastuurka qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabay waa kee ma kii gaaladu idin dejisay Soomaa kii idin kala qaybiyay Soomaa kii landhiska idin ka dhigay Soomaa dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka Ilaahay iyo sunnadii nabiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba aqligiina iyo wacyigiina hadduu heer ka joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa iimaan kara maanta ummadda meesha la isugu keenayo maxaa ka dhalan kara qiyaas la'dihiin mas'aladu mas'ala siyaasadeed ma mas'ala dawlad loogu hiilinaya ma mas'aladani wax weey waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa wallahi thumma wallahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaan nabi maxamed baana sidaa yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiina ilaaliya war ummadana ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxan kada tafarsameeya war isu tanaazula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciina dib u liqa masaalixdi damiciina khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa taala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabiyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeto loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meesha ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayay gaaladu ay soo taageertay ee dalka burburiyay waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo reehebel markaan gubanayna inaga dabkii ku gubanay maantana waa sidii way cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa inaga waa shacabka waa hooyada waa caruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war inaga gubanayna waa dalkeeni waa deegaankeeni inagii baa gubanayno dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeena ficlan ka shaqaynayso dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wado kursi doonayo awrka inugu kacsanaya inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yiraahdo soo baxa oo khatarta u bareero sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheena ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadana waa wax laynooga faa'iideystay waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeenu wuxuu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad lagu dili maxaad dhiigaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa ku soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu iimaanayay shacabkaad u tunteena waxaad tidhaahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talino gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkada dalka annaga leh annaga lixjacla naga haysa hadayna adiga ka haynin hadday ogaan lahaayeen shacab is hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shaki kuma jiro waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay
marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidanoo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna way isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamka ay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumaada iyo waxyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war wacyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii ree hebel iyo ree hebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kilillo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid sistamkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo sistamkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiise ma dantaadaa ma isweydiise waa markaan leenahay meesha layna geydhsiiye godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kalea marka waxay u baahan tahay muhimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiinna garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag iyo hebel maaha laakiin masaalixdiinna dalkiinna iyo deegaankiinna iyo diintiinna iyo dadkiinna sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك